wiilkayga Iftikhaarow inkastoo aanan ahayn aabbaha saxda ah haddana aad ayaan ugu farxay dhalashadaada waxaad ii ahayd wiilkaygii igu horreeyay ee aan dunida ku arko ishaydana ku qabowsato markaa kadib waxaan isguursanay hooyada waxaana go'aan ku gaarnay inaan ka cararno meel alla meesha uu joogo taliyaha si aan uga fogaano dhibaatada iyo halista uu noo geysan karo waxaan ka guurnay noloshii magaalo oo idin waxaana u guurnay tuulo waxaa halkaasi nolosheenna ku soo biiray walaalaha dhowr sano oo rafaad ah kadib waxaan halkaa ka samaysanay nolol yar waxaan noqonnay reer beeraley ah Iftikhaarow markii aad soo gaarteen da'da waxbarashada waxaan aniga iyo hooyadaaba go'aansannay inaan dib ugu soo noqonno magaalada si aan wax idii barno waxaan ka soo tanaasulnay mar kale noloshii tuulada aan la qabsannay waxaan soo galnay magaalada waxaana iibsaday taksi maalinkaa wixii ka dambeeyey waxaan noqday taksiila ku shaqaysta taksigiisa wiilkayga Iftikhaarow aniga shakhsiyan waan ka duwanaa dadka kale ee taksiilayaasha ee magaalada ku nool kuma shaqaysanayna magacayga saxda ah waayo waxaa jira markaasi qaanuun sheegaya in qof alla qofkii doonaya inuu taksiilo saxa noqdo waa inuu ka haystaa warqad damaanad ah booliiska aniga haddii aan isku dayo inaan booliiska tago waxaa jooga aabbaha yacni taliyihii oo aan ogahay inuusan isiinaynin damaanaddaasi sidaas daraaddeed waxaan ku shaqaysanaya magac shirkadeed waxayna iga jaran jireen qarash fara badan oo aniga aan shaqaysto taa beddelkeeda waxay caawin jiray luqadda Ingiriiska oo aan si fiican u aqiinay maadaama aan dalka dibaddiisa wax ku soo bartay shirkadda wax alla wixii dalxiisaha ay yimaada magaalada taksiilaha loo diri jiray aniga ayaan ahaa taas waxay ii fududayn jirtay in aan anigana helo qarash fara badan oo aysan helin asxaabta kale aan wada shaqaysanno runtii waxa aan haysannay nolol aad u wanaagsan waxaan ku noolayn nolosha ugu fiican ee magaalada inkastoo weli ay nagu jirta cabsi aan ka qabno aabbaha inuu mar una heli doono haddana dhib kale oo na haystaaho ma jirin waxa aan subaxdii ku soo kalihi jiray shirkadda si aan isaga shaqaysto habeenkiina waxaan u rawaxi jiray gurigayga ilaa laga gaaro maalinkii dalxiisihii Cameroon waxa ay ahayd maalinkii la xiray shirkaddii aan u shaqay jiray waa maalinkii la igeeyay saldhigga aan isha isa saarnay aabbaha waa maalinkuu ogaaday inaan ahay taksiile waa maalinkii la xaqiijiyey in taksiga milkiyadiisu aniga leeyahay laakiin magaca aan ku shaqaysto shirkaddu lahayd waxaan saldhiggii ka soo dhaqaaqay aniga oo walwalsan walaacsan cabsi fara badanna ka qaba in dhibaato ayna gaari doonto maanta wixii ka dambeeya waan hubaa in aabbaha uu marnana sii dayn doonin waan hubaa inuu raadin doono hooyada iyo halka ay ku dambaysay waxaan markaa kadib toosaan u soo aaday garoonka diyaaradaha si aan halkaa uga raadsado rakaab waxaan meeshii isku aragnay nin ka yimid dalka Cameroon oo dalxiisa ahaa waxa uu ahaa nin dhalinyaro oo aad u xoog badan weji furan aadna u qosol badan waxa uu ii sheegay inuu yahay ganacsade halkan u yimid inuu ku nasto kana indheeyo haddii ay suuragal tahay inuu ka sameeyo ganacsi waxaan toos u keenay hotel igu codsaday inaan geeyo wuxuuna sidoo kale ii sheegay inuu aad ii fahmay una baahan yahay in magaalada inta uu joogo aniga la shaqeeyo Iftikhaarow aabba halka si fiican u dhageyso waa halkii uu ka bilowday mugdiga noloshayda ku jira markii aan xaafadda imid ee aan tagsigii dhigtay meeshii baakinka ahayd ayaan waxaan mar qura isha saaray boorso ku dhex jirta gaariga markii aan soo qabtay waxaan ku dhex arkay lacag aad u fara badan iyo aqoonsiyo uu leeyahay ninkii Cameroon ilaa ninkii aan hoteelka geeyo maskiinka ahaa ayaa halkan ku dhex ilaaway waan soo qaaday inkastoo markaasi niyaddayda ay fiicnayd haddana mar walbo aan tallaabo hore u soo qaado dhanka guriga waxaa niyaddaydu soo galaya mar waliba inaan ka faa'iidaysto tano ay tahay jaanis waxaa isbeddelay fikirkaygii oo idil waxaana bilaabay inaan qaato talada shaydaanka uu ii sheegay isla markiiba waxaan go'aan ku gaaray inaan dib u laabto tagsigana kaxaysto oo aan guriga gelin waxaan toos u aaday nin aan saaxiibo ahayn oo hotel lahaa oo magaalada geeskeeda degganaa waan u imiday waxaana u sheegay inaan u baahanahay tagsigan inaan iibiyo qarash kalena aan haysto hoteelkana aan doonay inaan shirka kula noqdo aan si fiican u dhisanno hoteellihii arrintaasi aad ayuu u aqbalay wuuna ku farxay waxaan iibiyey tagsigii waxaana ku daray qarashkii kale oo uu lahaa ninkii maskiinka ahaa ee Cameroon waxaan bilownay inaan ku dayactirno hoteelka waxaana markan isku haystaa inaan ahay qof hotel dhan qayb kale dhanka kale ninkii
Cameroonka ee dalxiisaha ahaa markuu waayay qarashkiisii anigiina ay waayeen uu imaa waayay maalintii kale waxa uu toos dacwad ugu gudbiyay saldhigga ciidamada booliisku waxay ku raad joogaan oo ay raadinayaan taksiga ninka maalinka soo qaaday aniga xisaabta kuma darsan in booliisku ay suuragal tahay inay soo helaan waqti badanba kama soo wareegan waxa la soo helay taksigii kadibna aniga ayaa la qabtay waxaana la wada geeyay saldhigga meel aan wax ku inkiri karaaho lama joogo waxa meeshaasi ku caddaatay inaan dambiilihii ka dambeeyey dhicidda hantida ninkan maskiinka aan aniga ahay waxaan booliiska u sheegay dhammaan lacagtii oo idil in aan ku darsaday nin saaxiibo aan nahay oo hotel leh hotelkaasina aan qayb ku leeyahay booliisku markii ay tageen hotelkii waxa uu u sheegay ninkii hotellaha inaysan waxaasi waxba ka jirinba aqoonista aniga uu ii leeyahayna ay ku eg tahay inaan ahay tagsiilo mararka qaar geyn jiray dad rakaaba oo doonaya inay hotelkiisa seexdaan booliisku dib ayay iigu soo laabteen waxayna i weydiiyeen wax caddayn ah oo sheegaya inaan lacagta ninkaasi ku wareejiyey aabbo balaayadu markay ku qabsanayso waa goone iguma soo dhicin inaan ninkaasi la saxiixdo heshiis caddaynaya inaan intaasoo qarashana ku wareejiyey hotelkana qayb ku leeyahay markaa kadib waxaa la ii gudbiyey maxkamad waxaana la ii diray xabsi iftikhaarow aabba halkanna si fiican u dhegayso waa halka ay ka dhalatay warqadda furriinka ee aad soo akhrisay warqaddaasi waxa soo qoray oo sidaa u soo diyaariyey aabbaha waxa uu igu yidhi arrintan waa inaad sidaan u aqbashaa oo aad kala tagtaan gabadhan anigana waxaan kuu fududaynayaa inaad xabsiga ka baxdo maadaama aanan haysanin cid kale oo garab isiinaysa suuragalna ay tahay inay xabsiga iga saarto waxaan ku qasbanaaday inaan aqbalo arrintan aabbaha uu wato laakiin waxaan ku shardiyey anigana in uusan asigana guursan gabadhan ay noqoto mid iska joogta xabsiga ayuu iga soo daayey nolosheennina sidaa ayay ku socotay laakiin markan waxaana dul taagaan isha aabbaha oo na ilaalinaysa iminka waxaan ahay qof xor ah oo bannaanka jooga aanan haysan meeluu ka shaqeeyo arrintaasi waxaa soo maqlay ninkii hoteellaha ah ee lacagta igu booday wuu ii soo raadiyey wuxuuna ii sheegay inuu aad uga xun yahay wax alla wixii igu dhacay uuna iga raalligaraynaya qarashkiina ii haayo wuxuu sidoo kale ii sheegay inaysan hadda suuragal ahayn inuu lacagta igu wareejiyo laakiin ay u isticmaali doono qaab kale ay suuragal tahay inaan lacagtii ku helo waxa igu yidhi waxaan shaacin doonaa inaan u baahanahay qof cunno kariye ah oo hoteelka ka shaqeeya adigana soo codso si dawladday u ogaato inaad tahay cunno kariyaha hoteelka ka shaqeeya markii aad shaqada ku soo biirtana waxaad noqon doontaa soo dhoweeye sidaasi ayaan hoteelkaasi uga shaqayn jiray nolosheennana waxa ay ku socotay mid caadi ah aabba iftikhaarow markii aad soo weynaatay oo aan arkay inaad u baahan tahay in daryeel gaara lagu siiyo waxbarasho gaaroo wanaagsan u baahan tahay waxaan go'aansaday inaan hoteelka qarashkii aan ku lahaa kala baxo hoteel keligay samaysto si aan adiga kuu garab istaago ninkii hoteella ahayoo arrintaasi ka xumaaday waxa uu ii dhigay shirqool kale waxaa la igu wareejiyey ammaanadii hoteelka oo idil maalin maalmaha ka mida waxaa qasnaddii ammaanada lagala baxay dahab fara badan aniga ayaana qoorta la ii geliyey waa midda aan maanta u xidhanahay shaqana aan ku lahayn aabbo nolosha saxda ee aniga aan soo maray waa intaasi iftikhaar oo aad u ilmaynaya murugsan naxsan ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay xabsigii iftikhaar markaasi kadib waxa uu dhexda u xirtay sidii uu ku badbaadin lahaa reerka waxa uu isku dayey ugu yaraan inuu walaalihii wax baro dhowr sano oo rafaada kadib waxaa geeriyootay hooyadii walaalihiina waxa ay noqdeen kuwa isbixin kara magaalada markaa kadib waxaa soo galay hab cusub oo sheegaya in waddanka laga haajiro oo la aado dalka Sacuudiga si halkaasi looga shaqaysto iftikhaar waxa uu ku biiray dhalinyaro qabanqaabinaysa inay dalka Sacuudiga shaqo u doontaan waxa ay si nabada ku yimaadeen dalka Sacuudiga ugu dambeyntii dhalinyarada oo idil maysan jirin wax ay yaqaanaan marka laga reebo inay xoog leeyihiin iftikhaar waxa uu yaqaanaa luqadda Ingiriiska iyo darawalnimo waxaa markiiba qaadatay shirkad taksi waxauna uu bilaabay inuu noqdo taksiila ka shaqeeya dalka Sacuudiga halka nimankii kale oo saaxiibadiisa ahaa ay magaalada dhinac ka galeen dhowr sano kadib waxaa khasaaray shirkaddii uu u shaqaynayay iftikhaar waxaana magdhow ahaan loo siiyey taksigii waxa uu noqday qof taksiila ah oo waddanka deggan oo iskii u shaqaysta waa uu guursaday waxa uuna bilaabay noloshiisa caadiga ah inuu halkaa ka sii wato
muddo kadib waxa ay kulmeen qaar ka mid a asxaabtii ay maalinkii isla yimaadeen waxa uu arkay inuu yahay qofka ugu tabarta yar leh ugu faqiirsan dhammaantood waxa ay heleen hanti markii uu wareystay asxaabtii inay u sheegaan sababta ka dambaysa inay intaanu hanti helaan isagana uu faqiir yahay waxay u sheegeen markii ay yimaadeen inay la kulmeen nin sheekh ah uu u sheegay haddii aad rabtaan inaad dalkan hanti fara badan kala laabataan maalin weliba waxa aad shaqaysataan qayb ka mida ilaahay dartii u bixiya hanti fara badan ayaad helaysaan annagana sidii ayaan yeelnay ilaahayna wuuna deeqay iftikhaar isagana waxa uu go'aan ku gaaray in bishiiba hal maalin uu gaarigan ilaahay dartii dadka ugu shaqeeyo cid alla ciddii soo raacda maalinkaasi meesha ay doonto ha dhowaato ha fogaato inaan wax qarash ah laga qaadin iftikhaar isagana waxa uu arkay arrin uu la yaabay maalmaha caadiga uu isaga shaqaysanayo rakaabku waa uu yar yahay maalinka ilaah markii la gaaro meel waliba ayay taagan yihiin mararka qaar naftiisu waxay istiraahdaa niyow maanta rakaabku wuu badan yahay maalinta ilaah maanta ka beddel oo maalin kale u wareeji haddana waxa uu soo xusuustaa wixii ku dhacay aabbihii soo koriyey iftikhaar sidaas ayuu ku noolaa maalin ka mida maalmihii ilaah ayaa waxa uu soo aaday inuu dadka u shaqeeyo waxaa nin rakaaba uu ku yidhi waxaan rabaa magaalo kale iftikhaar wuxuu u sheegay magaaladaas inaan tagsiga loo kaxaysan ee uu jiro basas aado ninku wuxuu ku adkaystay inuu qarash iska bixinayo weliba qarash fiican ee tagsigan uu door bidaya in lagu geeyo magaaladaasi waa maalintii ilaah iftikhaar waxa uu ku khasbanaaday ninkii inuu qaado waxa uu geeyey magaaladii kale aad u fogayd iftikhaar markii uu u soo laabtay magaaladiisii ayaa waxaa gacanta u taagay nin iyo naag afrikaan ah wuu u yimiday waxay u sheegeen inay rabaan magaalada isaga uu ku socdo horay ayuu u soo qaaday intii dhexda ay soo socdeen ayay iswaraysteen waxay u sheegeen inay yihiin Kameruun inay weliba ninka uu yahay qunsulka cusub ee dowladda Kameruun u soo magacaawday dalka Sacuudiga uuna u socdo qunsuliyadda waxa uu sheegay inuu hadda ku hormari doono hotel gaar ah iftikhaar wax gaar ah oo ku soo dhacay arrintaasi ama ay xusuusisay ma jirin waxa uu yimid magaaladii waxa uu toos u geeyey hotelkii ay codsadeen nasiib darro hotelka waxaa lagu yidhi waa uu buuxaa mana jiro boos aad hore u sii qabsateen oo annaga aan hayno waxa uu ku yidhi balka warrama haddii aan gurigayga oo halkan ku yaalla idin geeyo waxa uu geeyey gurigiisii weliba waxaa lagu jiraa bilsoon ah afurkii kadib waxa uu ku yidhi waxaan aadayaa masaajidka waan soo tukanayaa idinkuna halkan isaga sii nasta waxa uu geeyey qolkoodii wuxuu u daaray TV-ga uunu iska tagay xilliga taraawiixda markii la gaaray waxaa TV-gii soo galay salaaddii taraawiixda qunsulka Kameruun iyo xaaskiisu labaduba waa gaalo waxay aad ula cajabeen qaabkan loo tukanayo iyo dadkan safan inkastoo dalkooda markii la joogo ay maqli jireen wax la yidhaahdo taraawiix haddana maysan arag qaabka loo tukado iftikhaar markii uu yimiday ee uu reerkii u yimid uu soo salaamaya waxay ku yidhaahdeen warnii waxaan rabnaa inaadna geyso halkan saan annagan uga qayb qaadanno meeshan iyo wax ka socda waxa uu u sheegay in halkan ay tagaan dadka muslimiinta oo keliya gaaladan loo oggolayn maalinkii afaraad qunsulkii Kameruun iyo xaaskiisii waa ay soo islaameen muddo kadib waxay u wareegteen qunsuliyaddoodii oo waagaa ku jirtay dayactir waxayna mar u yeedheen iftikhaar si ay u martiqaadaan martiqaadka markii lagu jiray ayaa ninkii qunsulka ahaa waxa uu bilaabay inuu ka sheekeeyo inuu dalka Bangladesh u aaday dalxiis dhibaataasna loo geystay iftikhaar waaga ayaa ku baryay indhaha ayuu taagay waxa uuna dib u soo xusuustay wixii dhacay ee noloshoodii soo gaaray iyo balaayadii ku bilaabataba halka ay ka bilaabataba inuu ninkan yahay waxa uu ku yidhi war ma ninkii tagsiga alaabta uga dhex tegay ee taariikhdiisu Bangladesh taalla ayaa tahay qunsulkii aad u qoslay wuxuu ku yidhi war iska illow waxaas waa wax laga tegay laakiin waa qiso keliya aan rabin inaad ogaato iftikhaar oo madax raaraco aadna u murugaysan dareemaya xishood iyo dhibaato fara badan ayaa waxa uu ninkii qunsulka uga sheekeeyey arrintii dhibkan soo gaaray inuu ka dambeeyey ninka soo koriyey qolada dhacday ee dhibta u geysatay inay reerkiisa ahaayeen ninkii qunsulka ahaa wuu yaabay waxa uu iftikhaar weydiiyey halka uu ku dambeeyo ninka dhibka u geystay iftikhaar waxa uu u sheegay markii Sacuudiga uu soo galayay inuu xabsi ku jiray
iftikhaar iyo qunsulkii Cameroon oo wada socda ayaa waxa ay tageen Bangladesh. waxa ay la kulmeen ninkii odaga ahaa. ninkii qunsulka ah waxa uu u sheegay inuusan murgin. wiilka uu soo barbaariyay iftikhaar ahaana uu maanta mas'uul ka yahay farxaddan adduunyada uu haysto iyo midiisa aakhiro. qunsulkii waxa uu bixiyay dhammaan qarashkii lagu lahaa ninkii odaga ahaa, waxaana laga soo daayay xabsiga. iftikhaar, qunsulka iyo aabihii oo aad u faraxsan waxa ay ku soo wada laabteen dalka Sacuudiga. waxa u wada bilaabatay nolol cusub. waxaa la wada ilaabay dhammaan murugtii soo wada martay labada reerba.